wagaag daawadayaal siyaasiyiin iyo weliba aqoon-yahan ka soo jeeda gobollo ka tirsan dhinaca bariga iyo weliba somalilan ayaa shilay ku yeesheen waddanka maraykanka waxa ay kaga soo saareen in ay guddi ay ku sameeyaan guddidaasi oo ay ugu magacdareen guddida midaynta iyo weliba maamul samaynta gobollada waqooyi bari sida ay ku sheegeen guddidaasi ayaa waxaa halkaasi la iskula gartay inay ka howlgeli doonto gobollada dhinaca bariga haddaba guddoomiyaha guddidaasi maxamuud axmed cabdallah oo ku sugan waddanka maraykanka ayaa waxa uu si toosa bulsha t v ugu warramay guddidaasi iyo waxa ay qaban doonto guddoomiye maxamuud axmed cabdallah kusoo dhawo bulsha t v aad iyo aad baa umahadsan khadarow waan dhowahay walaal guddidan aad ku magacowdeen ama aad ku samayseen shirka aad ku yeelateen waddanka maraykanka ee aad ugu magacdarteen guddida maamul samaynta iyo weliba midaynta gobollada bari maxay ka shaqayn doontaa guddoomiye khadarow guddidaas waxa weeye guddiga midaynta iyo maamul samaynta gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya guddidaas waxa weeye ujeedada loo asaasay waxa weeye gobolladaas disbiyay muddada 29 sannadood ah ee dhibaatooyinka laxaad kalihi ku soo noqnoqonayaan ubad aad u ballaaran oo Soomaaliyeedna ay ku dhaqan tahay ayay doonaysaa xalkii lagu gaarsiin lahaa maamul ay ugu madax bannaan yihiin sida constitutionka Soomaaliya qabo constitutionka lagu heshiiyay 2004 Soomaalidu markay colaadaha ka soo baxaysay constitutionkaas oo dhigayay in gobollada proximity-ga ama isku dhow ama moodaa marka dantoodu inay meel wada jahaysanayso inay u madax bannaan yihiin maamul inay samaystaan waxa weeye waa wax mandate constitutionka Soomaaliya uu leeyahay duruuf iyo dhibaatooyin ka jiray gobolladaas oo sidaad adiguba hadalka ku bilowday marna aad geysay dhinaca maamulka Somaliland marna aad geysay dhinaca Puntland marka sababta loo sameeyay waxa weeye inay ka jawaabaan guddigaas ay ka jawaabaan si nabad ah oo Soomaalinimo iyo derisnimo ku salaysan iyagoo ka duulaya in maamul loo yagleelo gobolladaas saasaa loo yagleelay guddiga guddoomiye bal gobollada aad sheegaysaan aad leedahay waanu ka howlgalaynaa haddaanu nahay guddidaasi bal noo tilmaamad waa kuwee ka mid الخضر استاذ وقتها وحوي waxa la yiri xagala geel wax gunti la geliya way ka weyntahay aduguna waa ogtahay qof walba Soomaaliyeedna waa ogyahay gobolada waqooyi bari Soomaaliya oo gobol la jiray weeye oo gobol jiray oo Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa ay ka mid yihiin hadda gobolada la yiraahdo Sanaag iyo Sool iyo Togdheer ay ka mid yihiin waad la socotaa in maaragtay idin halka lafta maxaa la yiraahdaa marka Hargeysa ay joogto in la gobolada bariga la yiraahdo iyo gobolada bariga Soomaaliland bay yiraahdaan laakiin run ahaantii waqooyiga Soomaaliya wuxuu ahaa waqooyi galbeed iyo waqooyi bari laakiin beersay markaan ka hadlayno waqooyi bari waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa gobolada dispute-ka ah wad garanaysaa dhulka dispute territory-ga la yiraahdo ee isku turturka ku jira marna la raaciyo maxaa la yiraahdaa Puntland la raaciyo mana la raaciyo Somaliland geographical distinction kaas weeye qadaro waan gartay guddoomiye deegaamadan aad sheegaysa waxaa ka taliya Somaliland iyo qaybo ka mid ah Puntland baa ka talisa idinkuna qurbo joog baa tiino waddanka dibadiisa aad ku sugan tihiin sideed uga hawlgalaysaan markaa maadaama maamuladaas ka jiraan walaal way ka fog tahay arrintaas xaqiiqda way ka fog tahay maamuladaas dadka walaalahayo ay ku dhaqan yihiin maxaa la yiraahdaa ka hawlgeliyay dalka anigoo aan wax dhibaato u qabin oo gaar ah waxa weeye barnaamij la yiraahdo aan ku sheegto ayaa ka socda maxaa la yiraahdaa meelo badan oo Soomaaliya waad ogtahay maamul goboleedada Soomaaliya haday noqoto Somaliland haday noqoto Puntland Jubaland Galmudug koonfur galbeed dhammaantood waxa la inaan maamul gacanta ku wada haya jira maamul gacanta ku wada haya dhulka uu sheegto kuma jiro marka sida awgeed walaal waxa weeye waa
waa sheegasho weeye laakiin xaqiiqada dhulka ka jirta way ka duwan tahay waa gartay guddoomiye markaa somalilan arrintan horta ma kala hadasheen oo sidii dee dadka aad xaqan aad sheegaysaan aad ugu raadin lahaydeen maadaama oo ayagu deegaanka ka taliyaan mala xidhiidheen marna xaqiiqdu waxay tahay halkaad hadalka ka bilowday arrintani arrin somalilan khusaysa maaha sababta waxa weeye somalilan si asymmetry u samaysan tahay waxay ka jirtaa run ahaantii waxa weeye waa waqooyi galbeed soomaaliya weeye somalilandna markaan ka hadlayno waxa weeye waa soomaaliya baad ka hadlaysaa magaca doonto dhig laakiin xaqiiqdu waxa weeye dad ayahooda ka tashanaya si nabad ah oo wanaag ah ayaynu ka hadlaynaa marka arrin maaragtay ku saabsan maaha maaragtay anigu u malaynayo say la tahay in cid marti looga yahay waxa weeye ummad walba oo soomaaliyeed oo geyig ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan waxna iska weydiiyaan arrimaha siyaasadda saameeya ma la odhan karaa arrintan dowladda soomaaliya ayaa dabada ka riixaysa oo xaggaas asal ku haysa waa mashruuc dhinaca ka yimid ma la odhan karaa arrintaasi waa shaki wanaagsan laakiin leeyahay anigoo ah guddoomiyihii guddigaas arrintani waa arrin ka timi grassroot waa arrin maaragtay ku salaysan reconciliation qaybaha maxaa la yidhahdaa ayay siyaasadda lagu dhex tuuray ee dadka gobollada ka soo jeeda in maxaa la yidhahdaa ayay central force isu geysa iyadoo aan la kala eegayn meeshay gaar ahaan uga soo jeedaan marka waxa weeye waa arrin waa isku tashi gooniya weeye arrin hadda federaalka gooni wax looga saari karo maaha maamulo hore oo laga sameeyey deegaamada way ka shaqeyn way socon waayeen oo somaliland maadaama ka taliso keenan markaa muxuu kaga duwan yahay kuwa hore maamulada hore ay ka shaqeyn waayeen deegaamadaas sida xaqiiqda waxa weeye waddanku wuxuu soo maray duruufo kala duwan waa runtaa oo waxaa jiray isku dayo iyo maaragtay waddanka soomaaliya guud ahaan marka la eego dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa weeye waxaa riday jabhado waxa weeye jabadihii haddii ay dowladda rideenna waxa weeye dhulkii aan jabaduhu ka jiri jirin sidan area sool iyo sanaag iyo togdheer meelo ka mid ah waxa weeye dhul jadilaaxeen maahay marka waxa weeye waxay ka yihiin kani waa wadatashi runtii qoto oo ballaadhan oo inclusive ah oo maxaa la yidhaahdaayey waqtiga iyo dhibaatooyinka laxaad kale ee gobolka ka jira ay runtii maxaa la yidhahdaayey sabab u yihiin hadday noqoto nabadgelyo darro hadday noqoto horumarkii oo noqday asymmetric waxa la yidhaahdo ama mid aan maxaa la yidhahdaa isu dheelitirnayn hadday noqoto tyranny ama power lagu tagrifalo oo maamulada hareeraha ka jira deegaamada runtii ay aad iyo aad ugu talax tageen waad maqlaysay ninka la yidhaahdo cabdullaahi meesha puntland la yidhahdo hadda madaxweynaha ka ah hadda wuxuu ku hadlayay ummado dhan iyo gobollo dhan inuu ku sheegay inay yihiin argagixiso inagoo og siciid cabdullaahi deni inuu ahaa xubin ka tirsan kooxihii diimaha laftiisu oo macnaha dee wax qarsoodi ayna ahayn oo xataa maamulkii ugu dambeeyey oo lagu xaman jiray inay yihiin ma garanaysaayey maxaa la yidhahdaay dad ideologigaas ku shaqeeya inuu xubin ka ahaa hadda inuu ummaddan dusha ka mara arrimahaas oo dhammi waxay u markhaanti kacayaan dhibaatada ka jirta oo aan weliba anigu aan wax yar korka ka taabtay halkaad igala socotaan waa bulsha t v studiisa magaalada hargeysa waxaa khadka si toosa ugu jira guddoomiyaha guddida midaynta iyo weliba maamul samaynta gobolada waqooyi bari maxamuud axmed cabdal guddoomiye waad ila socotaa waa kula socda khadarow guddoomiye ugu dambeyntii intaad ku mashquulaysaan siyaasad iyo maadaama tin qurba joogii iyo weliba dadka aqoon-yahanka ee deegaamada ka soo jeeday aad dhibta aad sheegayso dhan ay ka jirto miyaan ahay inaad ku mashquushaan inaad dadka bulshada wax u qabataan hadday dhinacii baahiyaha asaasigaa tahay iyo dhinacii kaleba miyaan ka qurux badnayn inaad bulshada wax u qabataan intaad siyaasad ku mashquul leydeen sidaan hore uga hadlay sideedaba
development iyo maxaa la horumarin iyo maxaa la yidhahdaa dhaqaale iyo siyaasad ma kala maarmaan waxa weeye xaqiiqada jirta waxa weeye waddanku sida uu dhan walba waad la socotaa dalka Soomaaliyeed meel walba maxaa dhaqaale siduu u dhisan yahay waad ogtahay inay xataa dabaqado dhismeen ma garanaysaa magaalooyinka waaweyn oo sida Hargeysa iyo Muqdisho iyo aad ku arkayso dadkii Soomaaliyeed oo laba dabaqadood noqday dabaqad dhulka xaabaysa iyo dabaqad dhaqaale haysata arrintaa siyaasad dhaqaale ayaa keenay iyo corruption marka waxa weeye xaajo walba meesheeda loogu tagaa waxa weeye arrintan waa wax dadka Soomaaliyeed ka dherigsan yihiin caalamkuna ka dherigsan yahay waa arrin waqtigeeda runtii dhaaftay runta marka la eego waa arrin wax ku samaanayaan dalka Soomaaliya transition ku jira waxaad moodaa inuu ka soo kabanayo dhibaatooyinkii faraha badnaa oo soo macna dalka ragaadiyay ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogto waa isku mid haddii Hargeysa joogto iyo haddii Berbera joogto haddii Xamar joogto iyo haddii Kismaayo joogtaba waxa weeye biyuhu meesha baa la runta waxa la yiri meesha godan bay isugu tagaan waxa weeye dalka waynu ka dhirigsanahay siyaasadana waa la soconaa sida wax u socdaan waxa weeye su'aasha ay weydiisay waa su'aal runtii aad iyo aad qaali ah sababta waxa weeye markii aan ka hadlayay asymmetric waxa la yiraahdo ama dhaqaale hoobsi maxada ama dhaqaale aan dheelitirnayn hadda siyaasadda dadka iminka hoggaanka ka haya dalka gudihiisa waad la socotaa nin walba magaaladiisii buu dhistay magaaladiisiina xaafadiisii buu ka dhistay xaafadiisiina neighborhoodkii ama jaarkii uu deganaa buu ka dhistay waxyaalo badan oo aad u fara badan baa ka socda dalka gudihiisa marka waxa weeye horumarku waxa uu iman karaya walaalow markii siyaasad xasiloon la helo oo dadku ay aayahooda ka tashadaan oo ay administration helaan markaas ayaa dhaqaale iyo horumarin laga hadli karaa iyo adeeg dadweyne marka imka talaabada qaadaysan maxay tahay waxa weeye talabadan qaadana waxa weeye ahaantii arrintan waa arrin kulminaysa dhammaan bulshooyinka gobolada soo jeeda iyadoo lagu xisaabtamayo qof walba hadday noqoto kuwa maamulada ka arrimiya ama magaranaysa ku haya maxaa la dhibaatada faraha badan maxaa la yiraahdaa u shaqeeya hadday noqoto siyaasiyiinta maxaa la yiraahdaa ay muddo badan arrintan maxaa la yiraahdaa roolal kala duwan ka soo ciyaaray ama kaalmo lahaa hadday noqoto kuwa dowladda federaalka u shaqeeya arrintani waa arrin wada tashi ballaaran ah hadday noqoto maxaa la yiraahdaa golaha dhaqanka hadday noqoto intaasoo dhan bay rabaan iyo dhalinyarada maxaa la yiraahdaa ay aqoonyahanka inay iswaafajiyaan oo maxaa la yiraahdaa ay la soo fadhiisto arrintan laga wada hadlo waana arrin socotay dee muddo soo socotay had beer soo joogtay laakiin waxaan maraynayaa waqtigii ku habboonaaba maanta la joogaa oo Soomaalidu la doonayo maaragtay inay maaragtay transferaad in horumarku uu noqdo mid loo sinaado in ismaamulidda iyo maxaa la yiraahdaa dastuurka Soomaaliya uu leeyahay mandate garaynayo oo dastuurkii 2004 la qoray oo runtii ay ahayd qodob lagu daro bay ahayd qaabka dawlad goboleedadu noqonayaan waxa weeye waxaa laga dhigay box furan oo ninba dhinacuu doono u jeedan karo territorial garab wax la yiraahdo ma la yiraahdaa ay xataa wadamo xadadkooda waxa jira maamulada qaarkood sida Soomaaliland iyo Puntland xataa wadamo ayay galaan ma garanaysaa khariidadu gashaa marka waxa la doonayay wadamo kale oo aan Soomaali ahaan ba khariidadu gashaa wasiiro wadamo kale ka yimid wasiiro ka ah waxa ka arag wadamo kale ka yimid marka xaqiiqadu waxa weeye walaal waxa loo baahnaa maaragtay in dadka Soomaalidu waqtigan xaadirka waxa loo baahay baan ka wada in ay xaqiiqda fiiriyaan oo ay maxaa la yiraahdaa ay inkastoo qodobkaasi aanu cadaynin habka wax loo mari lahaa oo maxaa la yiraahdaa ay uu taabtay meeshii laga bilaabi lahaa waxa la doonayaa dadka Soomaalidu inay tanaasulaan oo ay ka fikiraan modelis iyo horumarkan iyo maaragtay qaab loo wada socon karo loo wada noolaan karo ummad walba Ilaahay meel ku abuurtay way wada noolaataa system iyo kala dambeyn iyo sharci bayna maxaa la yiraahdaa ay ku noolaataa laakiin pseudo states baa ka samaysan Soomaaliya stateska anigu aan runtii aan wada dhaliilayn waxay sameeyeen wax wanaagsan ay sameeyeen oo dad Soomaaliyeed ku nabad galeen oo ku barwaaqoobeen haddana saas oo ay tahay arrimaha noocan oo kala ah wax ay meesha ka saareen in maxaa la yiraahdaa ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho maxaa la yiraahdaa waxbarasho heer walba aynay helaan dad weynaha Soomaaliyeed inay caafimaad helaan dadku inay ammaan helaan marka waxa weeye arrimahaas oo dhan walaal waa arrimo maaragtay
macna is wada jiidanaya weeye marka waa arrin loo baahan yahay in laysku taageero dadka Soomaalidu oo ay waxa la joogaa waqti maaragtay adduunyadu isu imanayso in dadka Soomaaliyeed ay fikiraan oo xasiloonida iyo ay ka tashiga iyo wanaagga la soo galaado waa gartay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida mideynta iyo weliba maamul samaynta gobolada waqooyi bari oo dhawaan lagaga dhawaaqay waddanka Mareykanka maxamuud axmed cabdalla oo khadkaasi toos ugu jiray isagoo ku sugan waddanka Mareykanka gudoomiye aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Khadar oo adiga iyo asxaabta Bulsha TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin